markale kulan wacan daawadayaal meel walbaad naga dheehanaysaan caasimada magaalada Muqdisho haday tahay hadii gobolada tahayba iyo hadii meel ka sii baxsanba ay tahayba daawadayaal markale kulan hagaagsan oo wacan anigoo jecel iyo adinku idin hamuuqaba daawadayaal markale isku soo noqod wanaagsan waagaga maadaama barnaamijku uu jecel uu yahay daawadayaal uu yahay barnaamij cusub isla markaasna aan jecelnahay in daawadayaashu barnaamijka aad u jeclaan doonaan maadaama magaca jecel uu wato daawadayaal warbixino jecel ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa warbixinadaas oo dhamaantood bataabanaya barnaamijka jecel isla markaasna yihiin sheekooyin jecel waagaga daawadayaal fiski iyo fuad hadda daawateen heese kale oo kaalmo kale suugaan oo jecel ayaa inoo soo maqan oo saaxiibada xagga farsamada ee gacan siinayna ay leeyihiin Jamaica barnaamijka maadaama uu yahay jecel looma kala baxayo daawadayaashuna intay barnaamijku hawada uu ku jiro iyaguna daawadayaashu aad bay runtii ay barnaamijka aan ka qabtirnaa ay leeyihiin saaxiibada xagga farsamada ee gacan siinayay waagaga inta kaalmaha suugaanta daawadayaal oo sida qalabka makiinada loo rorogeyna xagga warbixinada barnaamijka ayaan aadaya warbixinta ugu horeysay daawadayaal barnaamijka jecel waxaan ku daafuranayaa lamaane hadda ugu waa lamaane markaan durbaba lamaano dhaho dadku waxa ku soo dhacaya lamaanada ayuu isla markaasna 30 ka hooseeya ama 20 ka hooseeya oo waxay isla yihiin maadaama lamaano bal sheegaba madada yar ayuu Jamaica soo qaban doonaa maaha sida daawadayaal waxaan soo qabanayaa lamaaniyaal 1989 kala jira ayaa la leeyahay maadaama xiriirkoodu aad waqti dheer u soo wada qaateen ayaa markaan labadii lamaana daawadayaal ay calaamaday isla markaasna waqtigiisa la soo qaatay ayaa la leeyahay isku mar ayay geeriyoodeen iyagoo sida gacmaha iskaga haysta ayayna geeriyoodeen labadaas lamaana ayaana guud ahaan dalka Mareykanka iyo caalamka aad looga hadlaya labada lamaane ee daawada iminka ku muuqanaya isdhoonkanaya ayaa noqonaya laba lamaano aad runtii sheekadooda caalamka aad looga hadlayo lamaano lixdeenu leeyahay 1989 ayay kala jireen ayaan isku saacad geerooday waa kuwa iminka ku muuqanaya Isaac Kevin iyo 19 jir ah ayaana gacanta hayay xaaskiisa Teresa oo 89 jir ah markii ay geeriyoonaysay cudurka lamadan u geeriyootay sida uu daabacay wargeyska la yiraahdo Daily Herald la yiraahdo daawade Isaac ayaana isna geeriyooday 40 daqiiqo kadib xubno kamid ah qoyska ayaa waxayna sheegeen in ay isku dhisiyeen oo geeridaas loo fahmay in ay niid isku dhisiyeen maadaama iyagoo gacmo ay seesta haweeneedana geeriyootay isagana oo dabcan sida u geeriyooday jaceelkii ay isku hayeen wuxuu ahaa mid xoog badan midkoodana ma noolaan karin midka kale la'aantii ayay tiri gabadhooda Clara Kreskin oo ka dhashay ayaa yiri markaasi ama halkii ay joogtaba oo ka dhashay cabsi aad u weyn iyo argagax maadaama labada lamaan ay guuradeen isla markaasna qoysaska halkaasi joogeen runtii ay dareemeen murug aad u balaaran shaqaalaha isbitaalka Highland Black Hospital ayaa arkayay in ay daawadeen labadan lamaane ee aad isku jeceliyeen isla markaasna midka kale qalbigiisa u heeweynay isla markaasna waqti geerida qofka kale ku timid kii kalena 40 daqiiqo kadib uu geeriyooday xubnaha qoyska ayaana gacmahooda isu aadiyay markaas ayayna istaabteen ayaa la yiri lamaanahan ayaana 3 ilmood dhalay markii la leeyahay labadaas 3 ilmo dhaleen ayaana isbitaalka markii dambe soo gaaray walow hal gabarna hore u sii joogtay taawlira Clara Kreskin waxaana iminka la sheegayaa labadaas lamaan ayaana sheekadoodii taariikhdooda daawad waxay noqotay sheeko aad u weyn isla markaasna sidoo qoriya wargeyska Daily Herald la yiraahdo oo ka soo baxa dalka Mareykanka sheekooyinka jaceelka oo runtii noqonaya kuwa xiriir isla markaasna caalamka aad looga hadlayo ayaana taariikhda iyo sheekooyinka jaceelka ee la diiwaan geliyay labadan lamaane ayaana daawada laga diiwaan geliyay isla markaasna xeebaha iyo meelaha qurxoon joogo markay yaraayeen daawada sawir kala duwan laga qaaday ayaana sida noqonaya dalka Mareykanka ayaana guud ahaan marka la fiiriyo California iyo Arkansas iyo Mississippi iyo Virginia iyo Los Angeles iyo Washington DC ayaana sidoo kale laga hadlayaa sheekadooda maadaama ay noqonayaan laba lamaan oo aad u jecel isla markaasna daadooda hore u badatay waxaana leeyahay 40 daqiiqo ayaana geeridooda u dhaxaysay waxayna sidaasi ku dhacday ayaa leeyahay waxay isku sameeyeen ayaa leeyahay kalsooni aad weyn waa sida ay qabaan dadka halkaas ka dhawaa maadaama 40 daqiiqo u dhaxaysay kalsooni ayayba midka kale nafsidiisa ugu hubeeyo sida ay isku raaceen ayaa la leeyahay وعجيب داوديال وعن فيليها برامج جعيل حبنت وجوري سي تضباط كان كودا فرني
in ay idinka yaabaysay isla markaasna aad leedihiin barnaamijka isagoo cusbaa ayaaba durbaba Jamaica naga nixiso laba lamaane oo kalsooni heerka ay ka gaareen isla geeriyooday ayaa noogu dafurtan inaad leedihiin daawadayaal waa rajeynaya waagaag daawadayaal maadaama uu barnaamijka uu jecel yahay sheekooyinka marba dhinac ayaan ka eegaynaa haddii daawada marka aan kuu soo qabtay laba lamaane oo da ah oo kalsooni isku qabaan runtii 40 daqiiqo geeridu u dhaxeysay wargeyska Daily Herald yaraw dalka Mareykanka ka soo baxay sida uu qoriyay markaana intaan warbixintan kala soo qaban daawada ka hor waxaan doonayaa in aan su'aal idin hordhigo daawadayaal su'aashan waxa weeyaan horta waa maxay jecel maadaama laba lamaane isla geeriyoota aan ka sheekeynay dadku waxa uu muhiim ah in la weydiiyo horta waa maxay jecel jecelka halkee laga dareemaa muxuu yahay isaga muxuu ku fadhiyaa ahmiyada halkuu ka soo bilowday ereyo nooc ayuu ka kooban yahay jecelku miyaa wax la dareemo miyaa wax baaxad weyn miyaa wax kalsooni leh miyaa wax dareen wata miyaa wax reereen wata miyaa wax farxad wata miyaa wax runtii markii qofka uu dareemo jareynaya miyaa wax qofka markuu dareemo qanad dareemaya miyaa qofka markuu wax dareemana geeriyoonaya sida iminka warbixinta aan ku daafuro daawadayaal intaas su'aal ay idin weydiiyay daawadayaal ka hor warbixintan aan soo wado ayaa dhammaanba ka wada jawaabaysa hadduu yahay wax loo geeriyoodo hadduu yahay wax qandho wata hadduu yahay wax dareen wata hadduu yahay wax qarqaryo wata intaba warbixintan aan soo wado ayaan daawadayaal ku soo koobaya haddaba ciwaanka kore ee sheekada oo ah waa maxay jecel ayaan daawadayaal doonaynaa in aan dul istaagno horta micnaha jecel daawadayaal markii la yiraahdo jecelku waa udug waa carfoon waa wax saas dadka Soomaalida ayaa aaminsan waa wax lagu wada dhasho isla markaasna loo wada taageeyo hasaatee isaga naftiisa ayaan doonayaa inaan dul istaago horta ugu daawaday oo qalin buug soo qaado meel ku xariiqo isla markaasna adigoo wax aan sheegay dhageysanaya ayaan doonayaa wax afkay ka soo baxa daawadayaal inaad sida u xariiqatid ugu daawada jecelku horta waa shay qaali ah ka oo lagu lamaaniyay jiritaanka nolosha aadanaha iyadoo ay sida ay jirto oo jecelku uu yahay wax markaas nolosha ee runtii ka kooban oo aan laga maarmi kareynin ayaa daawadayaal waxa horta lagu soo koobay isaga xarfo ka kooban sida L O V E ugu daawada marka xarfahaas L O V E ah ayaa la sii kala micneeyay horta L erayga koowaad oo L ama sida u taqaanid balla wuxuu laga soo gaabiyay lack of pleasure O waxa laga soo gaabiyay daawadayaal ocean of Z V waxa laga soo gaabiyay valley of death E waxa laga soo gaabiyay daawadayaal end the life waa filaya xarfaas ina meel ku qoratay isla markaasna aad micnahooda runtii daawadayaal hadda luqadda Ingiriiska aad taqaanid aad dareemi karaysid oo aad leedahay wahaya hadda dareemi karaysid oo luqadaas aad ku dhibaysana daawadayaal Soomaali ayaan kugu micneen doonaa laakiin waa iga heesaa lack of pleasure ocean of Z valley of death end of life daawadayaal haddaba ayagii ayaan doonaynaa in aan sii guda galno kadibna aan ku sii Soomaaliyo haddaba ereyadaas waxa laga soo gaabiyay daawaday kelmadaha luqadda Ingiriiska oo micnaheedu yahay wada jecel lagana soo gaabiyay ereyadaas erey kala duwan oo la isku keenay haddaba ereyga markii la Soomaaliyo daawadayaal horta ereyga koowaad oo jaada waxa laga soo gaabiyay joohartii aad taqaani maahan oo gobolka ay daawaday laakiin waxa la yiraahdaa wax qaali jooharada daa maqashay waa wax qaali ah aad waxa laga soo gaabiyay ama kaak aad waxa laga soo gaabiyay daawada calaacal iid waxa laga soo gaabiyay anfiriir yaad waxa laga soo gaabiyay yaab laadna waxa laga soo gaabiyay daawada luul waxaan filayaa marka xarfahaas kala duwan oo iminka aan ku soo qabtay dhamaantood inaad wada faantay oo uwada kooban marka laga soo gaabiyay ereyada Ingiriiska lack of pleasure ocean of Z valley of death end the life waan filayaa daawadayaal Soomaaliga Ingiriiska labadaba inaga wada haysaan haddaba waad aragtaa qiimaha uu leeyahay jecelku marba hadduu yahay joohar marna waad aragtaa daawadii wuxuu yahay dhibaato marna wuxuu yahay amakaag marna waa calaacal marna daawada waa yaab marka ereyadaas ayaana daawadayaal oo jecelku ku kooban yahay oo ah wax dareen leh isla markaas loo dhiman karayo isla markaasna wax runtii aan firiira isla markaasna ka kooban wax walba oo caalamka daawada markaasi lagu soo koobi karayo haddaba ereyga jecelka oo isla markaas intaas aan ka soo koobay ayaa daawadayaal aabihiis jecelka aabihiis waxa weeyaan waa nasiib hooyadiisna waa calaf walaalihiis waa daawadayaal waa dadaal
waxaan filayaa dadka uu jecel yahay jaceylkan waa ruux daacad ah dadka uu neceb yahayna waa ruux aan daacad ahayn isla markaasna lugooyo wada ee dadka dhibana isla markaasna u soo taagan jaceylka ayaana daawadayaal wax oo dareen leh isla markaasna qofka bini'aadamka uu dareemi karayo dareenkaasi uu ka turjumaya qofka farxadiisa isla markaasna helitaankiisa iyo reereentiisa iyo damaashaadkiisana kor u sii qaadeen ereyada kooban oo luqadda ingiliishka aan ku sheegan daawadayaal waxaan filayaa inaad hoos ka xariiqateen kuwa soomaaligana sidoo kale aad xariiqateen oo aad leedihiin jaceylku aad buu u baaxad weyn yahay isla markaasna aad baan u fahnay haddii lagu yidhaha wars love oo yaa waa maxay jaceyl waxaan filayaa daawadayaal qeexitaankii aan kusoo qeexay in aad u dareemayso wagaag weli daawadayaal barnaamijka jaceyl ayaa daawanaysaan oo toos idinkaga imaanaya muuqbaahiyaha caalamiga muqdisho cable t v warbixino kale oo jaceyl ayaa daawadayaal noo soo socda haddaad tahay lamaane isla markaasna xiriir dhow iminka sameynaya haddaad haasaabo ku jirto iminkaba taleefonkii whatsappkii sida u garaacanaysa daawade haddii maanta aad ballan leedahay oo isla markaasna aad leedahay iminka u baxo bajaajkii ku taagan tahay haddii reereen iyo farxad iyo damaashaad jaceyl uu kugu soo wajahan yahana waxaan filayaa in muuqbaahiyaha iyo shaashada iyo anigoo jameykaba aad nagu hordheeraanin isla markaasna aad leedahay warbixinada kale ee soo socda jameykow aad baan kula socdaa oo kula jaan qaadaya kaama dheeraanayo aad baan kaaga mahad celinaya oo shaashada sii hor fadhi